I just wanna know if I should keep your number. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan haddii allah awoodala uu ka raali noqdo waxaan ku eegi doonaa oon idinkula wadaagi doonaa 7 xirfadood oo aad markaasi suuqa online-ka aad kaga shaqaysan karto. Sida aan muuqaalkii hore aan ku soo sheegnay waxaan ka hadalnay app loo yaqaano ama web loo yaqaano Fiverr oo aad markaasi xirfadaada aad xagga la tagayso kadibna meeshaasi aad dad kaga shaqaynayso oo aad orders helaysid millionska ama hundreds ama thousands xagga ku jiro oo ka shaqaysanaya oo shaqada diyaar u ah inaad markaasi adigana aad la mid noqoto oo aad freelancer aad noqoto oo aad markaasi adoo howlaha kale adduunka waxbarashada ku jira aad ka shaqaysan karto. Xirfado dhowr ayaan maanta markaasi on aad u fudud yihiin waqti kooban oo lagu baran karaa. Saaxiibka yaqaan ka faa'iideysto asagoo maaragtay inta uu company kala shaqo ugu raadin lahaa gurigiisa jooga internetkiisa computerkiisa jooga ha kaga faa'iideysto kii aan aqoon markaasi ha barto midii markaasi u fududaato. Xirfada koobaad oo aan maanta muuqaalkan rabin kula share gareeyo saaxiib waxa loo yaqaanaa blogger run ahaantii waa xirfad markaasi aad u fudud markaasi waxaad baranaysaa muddo kooban 1 week 2 weeks ayaad ku baran kartaa habka blog loo sameeyo. Sidoo kale web blogger ayaa maaragtay lacag ku baxin kartaa markii lagu sameeyo kadibna adminka lagu wareejinayo xagga ka maamulanaya kaliya waxaa sameynaysaa waxyaad soo post garanaysaa articles ay soo qoraysaa wararka dadku xiiseeyaan markaasi haadan siyaasadda ha ahadan ciyaaraha ha ahadan waxyaabihii markaasi adiga aad xirfad u leedahay aad ugu fiican tahay articles ay qori kartid aad ka soo hadlaysaa. Qof walba oo markaasina soo booqda webkaagaas oo barnaamijyada ka aqrista ama articles ka soo qorto ka aqrista waxaa la tusi doonaa xaysiimahaas website-kaaga lagu soo bandhigayo oo markaasi akhristaha readerka uu arkayo ayaa markaasi lacag ka sameynaysaa. Marka saaxiib article ayaa soo qoraysa waxa laga yaabaa weekii inaad 3 article bis soo qortid 4 article bis inaad soo qortid hamin walba adigoo maaragtay jiifo adigoo hurdaaya in website-kaaga la soo booqdo in article laga akhrinayo danna ay lacag ku socoto. Macnaha waxa waaye qaacida waxa jirta la yiraahdo who can make money while sleeping asagoo hurdaya lacag sameyn kara brother. Next skillka labaad ama xirfada labaad oo rabo muuqaalka inaan kula share gareeyo waa logo design-ka. Waa xirfad run ahaantii Fiverr markaad aragtid dad badan ay ku shaqaystaan aadna looga xiiseeyo. Run ahaantii professional hadii aad ku tahay hadda intermediate ku tahay hadii aad beginner ku tahay inta waa kaga shaqaysan kartaa. Waxaa jiro application badan oo markaasi aad mobilkaaga ku isticmaali kartid computerka ku isticmaali kartid oo logo designing hab fudud aad markaasi ku sameynaysid. Muuqaalkan daawo waa kuwana logooyin dhowr nooc ayaan sameynay. Run ahaantii logooyinkan ma aanan ku sameynin computer kuma aanan sameynin telefoonka ayaan ku sameeyay waqti badan igama qaadan at least 5 minutes ay iga qaateen logooyinkan logada ugu badnaa 5 minutes wax ka yar iga qaadatay xitaa. Marka dabcan logo design-ka waxaa jiro application loo yaqaano ama web loo yaqaano markaasi Canva oo dadka dhammaan oo graphic design-ka logo designing ku shaqeysta oo ka shaqeysta Fiverr ay markaasi design-yada ama orderska ama dalabaadka oo macaamilkooda customer-kooda ka soo dalbaday ugu sameeyaan. Marka Canva ayaad baranaysaa ayada waxaa lagu bartaa list flat-kaaga iyo wixii ku xiran tahay ka go'naanshahaaga 1 week waad ku baran kartaa dhammaan hadii maaragtay Pixar ama Pixar aad hore u isticmaali jirtana is so important brother. Sidoo kale waxaa jira affiliate marketing skill la dhahayo aydan uma baahna barasho badan uma baahna kaliya fahan iyo baahantaa bis. Affiliate marketing waxa waaye in aad maaragtay company badeeca u gadayo markaasi aad link ay ku siiyaan waxa la yiraahdo referral ama reference link ama referral links waxa la yiraahdo ku siinayaan kadibna linkigaas ayaad maaragtay ku bixinaysaa badeecadaas ayaad marketing u sameynaysaa brother kadibna qof walba oo linkigaas soo raaco alaab iibsada commission ayaad ku leedahay qof walba alaab iibsada commission ku leedahay. Marka hadii page aad kala kacsan leedahay Facebook mar walba online ka tahay affiliate marketing is very important brother. Websites badan ayaa jiro oo affiliate marketing kaas markaasi aad kaga ku biiri kartid website-ka insha Allah muuqaalka xiga ayaan kula wadaagi doonaa. website-yadaasi lacag kagama baahna si free ay account kaga furanaysaa kadibna referral links ku siinayaan alabahooda ayaad maaragtay waxay siinaysaa qof walba oo linkigaas soo raaco oo wax iibsadane markaasi waad maaragtay commission ay ku leedahay.
xirfadda afraad oo aan muuqaalkan idinkula wadaagayo waxay tahay waa photo editing oo ah sawirkii markaas inaad edit garaysid, inaad markaas sawirkii aad qurxin kartid, inaad habeyn kartid oo loo yaqaano photo editing. runtii waxyaabo badan ay la xiriirtaa photo editing. waa high level, waa waxyaabo aad loo jecel yahay, waa fantastic skill waa dad leedahay. waxaan hubaa in aad dad badan ama asxaab badan oo aan aqaanaba maanta inaysan ku shaqaynsan aysan ogeynba in markaas lagu shaqaysto, laakiin xirfad ahaan full skill how photo editing on mobile loo edit garaya markaasi. brother Janicekan ka faa'iideyso, waa waqtigaagii marka halka favor ku biir account ka samayso, PayPal account ku xiro, and then markaasi freelancer noqo. mid ka shanaad oo aan doonayo muuqaalkan inaan kula wadaago waxaa la yiraahdaa web designing-ka. saaxiib, web designing-ka ama website-ka sida loo dhiso haddii aad aqoon u leedahay, waxaan ku leeyahay hambalyo, xirfad fiican ayaa taqaanaa, maaragtay oo suuqa wax badan ka goysa, online-kana waad kaga shaqaysan kartaa. Google AdSense ayaa jiro oo markaasi waa xirfad aad u ballaaran oo run ahaantii xirfad waxa waa skill iyo u baahan waqti. waa brother xirfadani Google AdSense waa in aad markaasi dadka raba inay wax xayisiistaan inaad u programmisid xayisiimihii ama waxyaabihii ay xayisiisan lahaayeen, sawiradii iyo designkii waxyaabaa u diyaarisid iyo qoraaladii, kadibna aad markaasi ayaga iyo Google aad u dhaxaysid oo aad markaasi xayisiintoodii aad Google ugu dhibtid, kadibna ay u publish gareeyaan Google oo ay promotion ugu sameeyaan. waxaa jira idan xirfad kale aad u muhiim ah oo loo yaqaan video editing. saaxiib, xirfadahan aan meeshan kugu sheegay waa xirfado run ahaantii high class ah oo haddii aad mid kamid ah aad professional aad ku tahay markaas aad lacag aad u badan aad kaga shaqaysan karto suuqa online. And wonder what is going on inside their head. And wonder what is going on inside their head. And wonder what is going on inside their head.